مرحبا يا نور العين مرحبا يا غير الداعي مرحبا جد الحسين مرحبا لا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا هلا يا النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك مرحبا جد الحسين مرحبا لا مرحبا مولانا هلا مرحبا جد الحسين هلا يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا جد الحسين مرحبا لا مرحبا يا نور العين هلا يا غير الداعي هلا مرحبا جد الحسين هلا دلع البدر علينا من ثنيات الوداع مرحبا جد الحسين مرحبا لا مولانا هلا ما جد الحسين هلا وجب شكر عد الحسين مرحبا الله مرحبا يا نور العين هلا مرحبا يا غير الداعي مرحبا جد الحسين مرحبا هلا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المداعي مرحبا جد الحسين مرحبا لا مرحبا يا نور العين مرحبا يا غير الداعي مرحبا جد الحسين مرحبا جئت شرفت المدينة مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا لا مرحبا مولانا هلا جد الحسين مرحبا هلا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا لا مرحبا يا نور العين هلا يا غير الداعي هلا جد الحسين مرحبا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فيقول الله جل جلاله في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وبعد بسم الله الرحمن الرحيم إلهي أيام هذا إسكاله سبحانه وتعالى اسكو كان كيني مجلس كان آدي آدك أقيمها بدن في عن لو قرحيي أمه أهل إن أنا حضر ماشي أنا كلا إن كهذا أهل أمه dadkan uma cilmi badni umar aqoon badni laakiin waa in lay doortay inaan kelmateen ka dhaho marka waxaan rabaa anigoon ku sii dheeraahaynin ragna oo iga damay doono inaan xaw ahay maanta oo taariikhda ay maanta oo galab khamiis ah jamcan ay soo galayso taariikhda miilaadigana ay tahay 22 bishii 3 2018 ee waafaqaysa bisha hijri sanada hijriga oo ah 4 bishii 7 1439 ee hijriga ah
waxaan u fadhinaa siyaartii xaaji weheliye oo meeshaan in la rabo kalaamullaahi in lagu akhriyo. fadhigan aan galabta fadhina waxaa ka horreeyey fadhi kale ka horreeyey. fadhigaas marka qur-aankii waa la soo bilaabay, meel wuxuu noo joogaa meeshii ou joogaan rabnaa inaan ka bilaabno. ilaahay intuu naga karsiiyo aan rabnaa inaan ka gaarsiino. marka waxaan ku soo dhoweyn doonaa sheekh cali sheekh ibraahim oo asigana waxaa u ahay 2 kelima dhihi doono, dadka magacyadoodana kala sheegi doono. falyatafadal sheekh cali. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز هو أصدق القائلين: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. إخوتي في الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام دبديد الشيخ عبد الكريم خير الله سيو وحواي قفك صالحة waxaa caadadiisa ka mid ah in uu isxaqiro ou isyareeyo. kelimada anigu ahal umma ihi owr waa da'bu saalixiin. sheekh cabdulkariim waxaa waaye soomaalida amba haddii laga soo tago subaaleyda wuxuu ku magac dheer yahoo lagu yaqaanaa kabiirka Soomaaliya. marka sheekhu waa isxaqiray. qof kasto oo muslimana waxaa laga doonayaa in xoogaa uu naftiisa uu duleeyo oo walxataa uusan isdhihin. waxaan mahadihaynaa xaqa xamdihi الله سبحانه وتعالى mahadintiisa xaq ahaan mahadihaynaa maadaama uu nasuukayna keenay majliskan sharafta badan, majlisu dikri, majlisu lqur'aan, majlisu lkhayr ah. majaaz ahaanna waxaan mahadihaynaa intii noogu yeertay halkan inaan soo fadhiisanno noogu sabab naqatay. ay u horayso xaaji khadiija xaaji maxamed cadow, ilaahay khayr ha siiyo. waxa waaye subaca waa markii lamaad oo laysgu yimaado. marka galabta waxaan u casuumanahay xaaji khadiija iyo ahalkeedii ayagoo nagu soo dhoweeyey ziyaartii shaykhii mucadamka ahay xaaji weheliye raxmatullaahi calayhi. iyadoo aad u malayso annay amba ay tahay in dalabkayni xaajidu ay oofihayso, maadaama hadda kor markaasu dhahayna aan dhahnay waxaan codsahaynaa in ziyaarta xaajiga nagala soo qaybgeli haayo. ziyaartu qira iyo qurbaan ay ku dhacaysaahe inaan qirada ka taageerno oon ka soo qayb galno aan codsahaynaa. taasaa naga baxda. marka xaajidu waxaan jeclahay inay taas ay ka jawaabayso. marka haddii aan u noqdo mawduucii aayaddii aan ku iftitaaxiyey, qur'aanulkariim aan gelaynaa. ilaahayna wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka markii la akhrihaayo dhegaysta una dhig raariciya. fastamicuu aa ilaahay ka cabira. fasmacuu lama dhih, maqla lama dhih. waxa waaye samaac iyo istimaac waa kala fog yihiin. istimaac waxa waaye qofku
wixii dhegtiisa iyo qalbigiisu ay wada qabtaan. marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi qur'aanka markii la akhrihaayo fastamicuu dhegaysta. dhegaysi dheg iyo qalbi wada jira dhegaysta. maqal caadiya ma ahan. maqalka samaaca waxaa waaye wixii dhegtaada ku soo dhacayba qalbigu gudbina, laakiin istimaac waxaa ah wixii dhegta ku soo dhaca qalbiganuu gudba. waxaa la rabaa marka qur'aanka haddii la akhrihaayo qalban wa qaalaban inaad ka midowdo ood qur'aanka aad dhegaysato. marka nabiga calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisuu ka dalbihi jira se waxuu dhihi jiray igu akhriya. markaasay waxay dhahayeen ma kugu akhrihaynaa iyadoo qur'aanka laguu soo dejiyey. mugaasoo waxuu dhihi jiray waxaan jeclaa an asmaca min hayri inaan hayrkayga ka maqlo. waa ka warqabteen ibnu mascuud annisaa aan furfurnayo wura markii fakayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiidin wa ji'naa bika calaa haa'ulaa'i shahiida. markaan maraayo aa nabigu yidhi wura sala allahu calayhi wasalam xasbuk. markaasaan fiirsho wura wa caynaahu tadrifaan. nabigii oo indhihiisu ay daadahayaan aan arkayo wura. marka waxaa la doonaa qur'aanka haddii la akhrihaayo in la khushuuco, allah subxaanahu wa tacaala looga cabsado. qur'aanku wax badanoo ka hadlaa. waxaa waaye awaamir waa samaynaa, nawaahina waa samaynaa. qur'aanku waxna waa ku amraa oo aamir waaye, naahina waayahay waxbuu kaa reebaa. waxaa la doonaa waxuu ku farayaan inaad qaato, waxuu kaa reebaana aad ka reebtoonto. marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxuu noo ballan qaada marka qur'aanka haddii la akhrihaayo haddii nagala helo dhegaysi iyo dhigraaricin in allah subxaanahu wa tacaala uu noo naxariisahaayo, naxariistiisa aan ku helayno. marka waxaan isu dardaarmaynaa, nafteedana u dardaarmaa taqwallaahi caza wajal, ilaahay cabsidiis, in aan majliskan aan ilaahay uga cabsanno, meel kastoo joogno ilaahay uga cabsanno. nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidku wuxuu ku yidhi mucaad bin jabal oo werihaya, abudar iyo mucaad lamadaa isla weriyeen. inay hal majlis ku weriyeen waa suurtagal, in majaalis kala duwan ay uga weriyeenna waa suurtagal. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu xadiidku yidhi ittaqi allaaha xayثu maa kunta. harhooy meel alla lamaha joogto ilahay uga cabso, meeshaa joogto alla uga cabso. hadaad gurigaa ku jirto, haddaad bannaanka marayso, meel kastoo joogto, xadiidku waa shaamil. meel allala meeshaa joogto ilahay uga cabso. wa atbici sayi'ata alxasanata tamxuhaa. haddii xumaanu kaa dhacdana middaa xun mid wanaagsan raacsi tamxuhaa tirtay oo wuri nabiga sala allahu calayhi wasalam. marka waxaa la doonayaa walaalahayow aakhiraa nugu soo fool leh in ilaahay aan ka cabsanno. meesha hadda aan fadhinno in aan ka wada naqahayno ee xaafadahayno u naqahayno iyo inaan tegayno allah subxaanahu wa tacaala cilmigiisu koobay. marka qur'aankuna wuxuuna leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaaha waltandur nafsu maa qadamat liqad. dad yahow ilaahay ka cabsada, nafuna ha fiiriso waxay birri u hormari hayso. aakhira waxaa laga cabiray birri waa litaxaquqi wuquucihaa, dhiciddeedaa la hubaa, shaki kuma jiro. markaasaa ilahi wuxuu yidhi liiqadiinu ku cabira. carabtaa waxay tidhaahaa kullu aatin qariib, wixii imaahaya waa dhow yihiin, ayagoo hadda kugu dhacaayoo kale waaye. marka waxaa waaye cumrigayna cawa iyo maalin aal layhaaya, waana ku farxaynaa. yasuru lmar'a maa dahaba layaali wa kaana dahaabuhunna lahu dahaaba.
awra shaacirkii wuxuu uray qofka waxaa farax gelihaya uray habeenada tigidooda anaba tigid u ah socodka habeenadu ay socdaanuma usuguna ku socdaa shaacirkana wuxuu uray shicir aan filayo inuu ku socday baxrulbasiid oo wuxuu ku yidhi innaa la nafraxu biاlayaami naqdacuhaa wa kullu yawmin madaa naqsun min alajal facmal linafsika qabla almowti mujtahida fa inama alribxu waalkhusraanu fi alcamali saasuu yidhi waxaan ku farxaynaa howr maalmaha aan gudahayno maalin kastana nuqsaanaa tegayoo ajalka ka tegay shalay cumrigeennu meeshuu jiray beriga ma joogo qabrigaan u sii dhawaahaynaa fii kulli waqtin wa'aan waa dhawaahaynaa waa sii soconnaa ilaa aan qabriga ka tagno marka wuxuu ura facmal linafsika qabla almowti mujtahida warhooy naftaada u camal faro uray intaana adaan dhiman adigoo dadaalaya fa inama alribxu waalkhusraanu fi alcamali ribaxa iyo khasaaraduba camalkay ahaadeen uur yaa shaykh mashaayikhda waaweyn ka mida sheekh cabdulla weheliye la dhihi jiray raxmatullaahi calayhi waxau dhihi jiray markuuna wacdi tago camalkayna aanoo guriya camalkaynaa noo gaadiida camalkaynaa noo gaashaa camalkaynaa noo guura camalkaynaa noo gutiyaha u dhihi jira fiir qabriga qof wuxuu u naqahayaa rawda min riyaadi aljanna beeraha jannada beer ka mida qofa u naqaha xufratu min xufaari naarina qofa u naqahaa godadka naarta god ka mid a waalciyaadu billaah xaa lagu kala tegay camala lagu kala tegay wallaahi nasab laguma kala tegin camala lagu kala tegay ina akramakum cinda allaahi atqaakum waxaa idigu sharaf badan idigu karaamo badan halka idigu cabsi badan ya nabigana calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugnaatay naarta waxaa loo uumay qofka ilaahay caasiya qurayshba ha noqdo jannadana waxaa loo uumay qofka ilaahay adeeca cabdan xabashiin haba ahaado camalaa lagu kala tegay fa inama alribxu waalkhusraanu fi alcamali ribaxa iyo khasaaraduba camalkay ahaadeen ikhwaani qur'aankuna wuxuu leeyahay faman yacmal mihqaala daratin khayran yarah waman yacmal mihqaala daratin sharan yarah dhuuracasoo kale oo khayra qofkii sameeya qiyaama waa arkaa dhuuracasoo kaloo shara qofkii sameeya qiyaama waa arkaa marka aakhiran waa noo dhowda ilaahay saacadda markuu ka hadlaya qiyaamo waa maa amru saacati ilaa ka lamxil basari saacadda amarkan umaba ahaaninba ilmilicsi kalay ahaate ilahay waxu daba dhiga qur-aanka waa taqaaniini aw huwa aqrab war ishu intay milacsata maxaa ka gaabnaan badan waa in adduun iyo aakhiro yaan meel isu jirin marka waxaan galabta aan aad ugu nuuxnuuxsahaa anigoo naftaydana faraaya kayrkaygana faraaya waxaa waaye ilaahay wuxuu qur'aanka ku yidhi innama almu'minuuna ikhwa dadka mu'miniinta waa walaalo hadda dadkii ee haddana qaraaba ahay ee haddana qur'aanulkariim uu soo soocay mujtamacaasoo dhan qur'aanulkariimaa naga soo soocaan isugu nimiday qur'aanulkariim inaan anaku akhrihaynay aan xoogaa qalbiga aan wax isugu qabannaahu waa waxaan shaqayhayn ilaahay naga haayo qof kastoo isdhahaaye waxaaga adaa qalbiga ku haysatana allaahu yaclamu sira wa akhfaa ilaahayaa sirta iyo waxay kasii qarsoonaasha og waxay kasii qarsoon ilaahayaa og marka waxa waaye anigu kelimada ahal ahayn waayo dad iga ahalsanaa jooga
waxaa la yidhi saddex haddaad la joogto saddexaa la dhowrtaa. waxaa la yidhi caalim haddaad la joogto carabkaa la ilaaliyaa. ninka caalimkaahu haddaad aamusan tahay waxaad sheegaysaa ma heliyo, waxaad ximbaarsan tahay ma heliyo, laakiin hal kelimo haddaad ku hadasho miisaankaad ku fadhido ogyaha. shaykha hadda kahor waxuu nooga sheekay jiray wadaad oo mudarisa oo indhoolaha aa jiri jiray uura masjidow wuxuu ku akhri jiray darsi. xirtiisuu la ballamo wuxuu uray xiray anigu indhamalihi masjidkuna waxa waaye ninba ninkuu ka khatarsan yahaa imahaaye iga arduu hayba ah haddaad aragtiin xoogaha hoosa layga taabto uraa isku naqdhe. maalinta tanaa markaasaa waxaa yimid nin aad u libisan. xirti ballamay qabtaahe shiiqii hoos ka taabataa saa yidhaahaan arriga waa lagu jiraa. haa markaasuu wuxuu uray shaykhaygii soo dhowowhe waxaa la yidhaa nimanaa maantoo rasuul dirtay. markaasuu wuxuu uray allaahuma salli wasallim calayhi ou uri jaa waa fahayma marka ninkan canjaladiisu inay maran tahay. markaasuu wuxuu uray ka socohe kaydku waa maraya ka soco uuri jaa wuxuu ku ogaaday nimanaa rasuul dirtay. rasuulku carabiyada waxa waaye mid la dira waaye asagoo rasuul maxamed u qaata sala allahu calayhi wasalam. marka waxaa la yidhi haddaad caalimo joogto carabkaa la dhowrtaa. haddaad waxaa la yidhi dowlala joogtana indhahaa la dhowrtaa. meelaha lama fiirfiirsho. arriga jawaasiisaha ku kabana waxaa la leeyahay halkaanu ima waxoogaa saariqya raadaa ku soo gelaya. awliya haddaad la joogtana waxaa la yidhi qalbigaa la dhowrtaa. waxaa waaye waxaad is leedahay qofkii aad ku mashquulaysaa shaykhii aad is leedahay halkaanu xog yahay ilaa asagana ilaahayaa waxuu awood u siiyey in qalbigaaga wixii ku jira ou daalacdo. in allaha calaa kulli shayin qadiir. aaladda hadda maanta aan wax ku duubayno 5 qaaradoodoo dhanaa wax laga fiirsahaa waana wax gaal sameeyey. marka ilaahay qofku awood siiyo awoodda ilaahay ma xadidno. marka in sha allahu tacaala waxaa marka noo ballama in aan qur'aanka intaan ku jirno qof la warramaysa aan la arag. qof hadal laagya meeshaan waxaa laga doonayaa khayr. marka wixii laagya aan iska ilaalinno. naftaydan ka bilaabaa hayrkii in sha allahu tacaala waxaa subaca markii aan halkan ku duubaynay habeenkaas xaajido ay naga codsatay in salawaadka rasuulka aan ku iftitaaxino. habeenkii akhyaaraa noo iftitaaxis. haddana in sha allahu tacaala akhyaar cusub aana la joogta. majlisku galabta wuxuu ka markhaati kacayaa xaajiya khadiijo inay subclida ka mid tahay. waayo markii la bilaabayay barnaamijku barnaamij xadidan u ahay. hadda raggaa ku soo kordha. waxaa waaye xaajidu subclida hadday baratay halkaan oganoo ka tigid galee intay dhehaysoy la gudubtay. haddaana ku lamaa oy wax duubi tagto saasay noqonaysaa. waayo waxa waaye subcley waxaa ku badan yacni xiriirkeeda. marka in sha allahu tacaala kelimadeedii waa soo gaabihayaa. waxaa salliga galabta noogu iftitaaxihaaya oo akhyaarta nagu soo biirtay ka mid ah sheekh maxamuud carabow. marka shaykhaas ayaan ku soo dhowayhayaa salawaadka rasuulka asaa noogu iftitaaxihaaya. kadibna waxaan u gudbaynaa in sha allahu tacaala qur'aanulkariim. waxaanse ka hormarihaa akhyaarta majliska fadhida horta sida badan waa raggii horo laakiin rag cusub aa ku soo kordhay. marka maadaama canjal la duubayo canjaladdu waxaa waaye nidaam la soo maray leedahay. marka waxaan samaynaynaa galabta waa isu-imaadkii labaad majliska intuu koobay sida ay u fadhiyaan
aan haddana galabta soo gudbayna insha allahu. waxaan ka bilaabaa macali yuusuf cali cadow oo loo yaqaano cali naxar. macali yuusuf cali naxar. waxaa ku xiga macalin dhicis, macalin cabdullaahi dhicis. waxaa ku xiga mucallim akhyaarta qur'aanulkariim lagu yaqaano mataqaanaa jalowda ka mida macalin abuukar aw xasan nuur oo loo yaqaano macalin abuukar dabagooye. waxaa waaye waxaa la yidhi naani soomaali may baxdaa, haddee waa dabagooye kelimadaas aan sii jilciyo waa dabagooye maalima inu raaca maahine magacu magac xun maahinu magac qur'aanulkariim uga baxo waaye ayaan si kale loo malaynin. waa jalwada aan leehana iyaduna akhyaarta rugcadayga ee qur'aanka ku daahday oo la yaqaano ou ka mid yahay aan u wadaa. dowrkii hore naguma jirin, tabiinkan asagana ilaahay uu qadaray inuu ka soo qayb galo. waxaa ku xigay macalin axmed dhaare, asaga maku daahayay hore majliska waa u joogay, haddana waa fadhiyaa. waxaa ku xiga mucallim maxmuud carabow oo asagana mashhuur uu ku yahay filaweyne aa loo yaqaanaa. waxaa ku xiga wiilka da'da yare ee la yidhaaho ibraahim bulow, waa nin asaguna qur'aanulkariim ku jadbaysan waay. waxaa ku xiga nin la yidhaaho nuur maxmuud nuur. lamadora waa isaga dhiiraa maadaama ay yeeleeyihiinoo hadda sheekhna ma dhihin mucallimna ma dhihin, waa laakiin rag xufaadoo hadda insha allah ilaahay uu mataqaanaa majliskan keenay. waayahay waxaa ku xiga mucallim moxamed shaylillaah, asaguna majliska hore u joogay. waxaa ku xiga mucallim qalqaala aa ku xiga. asaguna waa joogay. waxaa ku xigay nin la yidhaaho sheekh yacquub almu'minulqawiyu khayrun wa axabbu. waa yahay sheekh yacquubaa ku xiga insha allahu. waxaa ku xiga mucallim cali axmed dhiblaawe oo asaguna aad u garahaysiin, oo asaguna mashhuur ku ah mucallim cali cilaan. haddaan mucallim cali cilaan la dhihin ee mucallim cali axmed la yidhaha labsi ay maahaye saasuu mashhuur ku yahay. waxaa ku xiga mucallim cabdi ibraahim, mucallim cabdi ibraahim raage. asagana waxaasoo dhan haddii la tiriyo ma la fahmaya haddaan gar weyne la dhihin. waxaa ku xiga kabiirkayna majlisku asoo ku idlaaday, marka waa khayr alladise waa ii toosiseen. waxaa reeddayda ka yeertay kabiirkayna ha dhehena kabiirka soomaaliya dhe. waxaan ka soo naqdha waa layga qalad bixi karaa, waa maasha allah. kabiirka soomaaliya sheekh cabdikariim mucallim abuukar. marka tacaarufkiina waa kaa. waxaa majliska ka maqnayn akhyaar oo qaraabadi ah oo isugu jirta lab iyo dhidig
galabta nagu soo dhoweeyeen majliskan sharafta badan oo khaliifku uu weyn yahay khayr allaha siiyo in sha allahu tacaala xaaji ismaan oo mataqaanaa xaajiyada walaalkeed ah meeshana asagu sanad ka horena nagu soo dhoweeyey nagana amba bixiyey haddaana si sharaf badan noo soo dhoweeyey khayr allah u jaaziyo intaasaan kelimadeeda ku soo koobaa waxaa noogu xogaayay salawaadka rasuulka in sha allahu tacaala anigana waxaa lagu aqoonsahayaa maadaama makrofonka aan haayo anuu cali sheekh ibraahima meesha ka dhiman sida akhyaartu ay ii sheegeen sumiya alinsaanu insaana linisyaanihi insaanka waxaa loo yidhi insaan linisyaanihi hilmaankiis waabis ilmaamo mahad ka dhimanta isma lahayn marka khayr allah idiin jaaziyo waayahay salawaadka rasuulka sheekh maxamuudaa noogu mataqaanaa noogu iftitaaxihaaye kadibna salaada maqribkaan dukahaynaa salaada haddaan ku ducaysanay qur'aanu kariim markaa aan geli doonaa insha allahu markaasaan waxaan tilmaami doonaa cidda noo garwaday haysay cidda noo bilaabaysa cidda noo garwaday haysay markaasaan iyadana u gudbaynaa wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu falyatafadal sheekh maxamuud مرحبا يا نور العين مرحبا يا غير الداعي مرحبا جد الحسين مرحبا لا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا هلا يا النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك مرحبا جد الحسين مرحبا لا مرحبا مولانا هلا مرحبا جد الحسين هلا يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا جد الحسين مرحبا لا مرحبا يا نور العين هلا يا خير الدار هلا مرحبا جد الحسين هلا دلع البدر علينا من ثنيات الوداع مرحبا جد الحسين مرحبا لا يا نور العين مولانا هلا ما جد الحسين هلا وجب شكر عد الحسين مرحبا لا مرحبا يا نور العين هلا يا خير الدار مرحبا جد الحسين مرحبا هلا ايها المبعوث فينا جئت بالامر المداعي مرحبا جد الحسين مرحبا لا مرحبا يا نور العين مرحبا يا خير الداعي مرحبا جد الحسين مرحبا جئت شرفت المدينة مرحبا يا غير الداعي مرحبا جد الحسين مرحبا لا مرحبا مولانا هلا جد الحسين مرحبا الله
مرحبا يا نور العين مرحبا يا غير الداعي مرحبا جد الحسين مرحبا لا مرحبا يا نور العين هلا يا غير الداعي هلا جد الحسين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا لا جد الحسين اللهم صل وسلم وعظم وكرم وشرف وزد وبارك عليه. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. الله سبحانه وتعالى أيام mahadsan anakoo fariidadiisa soo gudannay maqribka haddana dib nagu soo celiyey majliskii oo uga mahadnaqaynaa awoodtaynaa kuma imaan marka subax ayaa noo bilaabahaayay waa ziyaartii labaad meeshii subaxi uu noogu sinnaay aan ka ambaqaadaynaa waxaan ka bilaabaynaa in shaaa rabbulcaalamiin suuratu yuusuf laga bilaaba waxaan noo bilaabaaye mucallim cali axmed diblaawe mucallim cali cilaan dowrkii horena asaa noo bilaabay caawana isagaa noo bilaabaaye waxaa noogu xigaaye oo noo waardiyeyahaye mucallim abuukar ow xasan marka wada shaqayn wacan أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس ورأيتني ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من المسلمين وعيسى وإلى رب العليم به وسعاده آيات لسانه يوسف أخوه وعبد يا أبي أهلنا ونمت واسكتنا يوسف روحه على يغلق وجهه وتكون من بعده قوما صالحين قائل منهم لا تقتلوا يوسف وأروه ويا بدر بأن تنصروا سيئات كنتم فاعلين لا تمنى على يوسف إلا له الناصرون وعلى جنته وإنا له أنت جنبي وأخاف أن يكون الذئب وأنت على وافر حتى أصيب ولن أستطيع إلا الخاسرون أما ذهبوا به وأجمعوا أن يذلوا في غيابة الجب وإلى إلينا لأنهم بأمر هذا وهم لا يشعرون ولا من شاء يقولون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند مكاننا لا بنفس وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمر فسم جميل والله المستعان على ما تصفون السيارة فأرسلوا واردهم فأدلى بالوهو قال يا بني هذا غلام أرسلوا إلى الله عليه فشراه
عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض بلغ أشده التي وفي بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقال ليس لك على الله أن يغفر بها ولقد همت به وهم بها لولا الرب برهان ربه كذلك لنعذب عن السوء والفحشاء واستبق الباب فقدت قميصه من دبر وألف يا سيدا لدى الباب على المسجد ولا بذلك سور الله سلام عذاب أليم راودتني عن نفسي وشودتني عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الظالمين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها التي عجبها فإنها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وردن أيديهن وقلن هذا لله ما هذا شيء هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودت عن نفسي فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ويكون من السائلين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني وإلا تصرفني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات التي دخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر أمرا وقال الآخر إني أراني أحمل يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير من الله الواحد الوهاب. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله وما لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. السجن أما أحدكما فيسقي ربه غمرا وأما الآخر فيضرب له زيت الذي تستطيعان. وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكر بيت ربك وأنهم كيف ربي فلبث في السجن 9 سنين. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خذ وهو يابسات أيما أبدوني في رؤياي وانظر الرجال وقال الذي نجا منهما وادكر لهم أجرا ربي يوسف أيها
أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خذ الله يا بساط قال تزرعون 7 سنين وما تنتظرون إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك قوم يأكل ما قدمت لهم إلا قليلا مما تأكلون ويأتي من بعد ذلك قوم قال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بالنسبة للذي قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز يا حسنا وراودته عن نفسه وإنه لمن الصالحين ليعلم أني لم أكن بخير وأن الله لا يهدي كيد برئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلص لنفسي وما كلم وإنك اليوم لدينا مكين أمين هذا يرضيني حفيظ عليم مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء ونصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع المرسلين الذين آمنوا وكانوا يتقون إخوة يوسف فتحوا عليهم عرفهم لهم مغفرون جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ويسألون عني الليل وأنا خير المؤمنين وإن لم تأتوني به فلا لكم انتهاء سنراود وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفون إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون ولما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منعت منك قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتك على أخينا ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير لنا ولقد وقعنا له معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لا تأتونني به إلا يعذبكم لما أتوا موثقا ما نقول وكيل قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إلا إذا توكلت عليه فليتوكل المتوكلون وأمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا هذا تأويل يعقوب وقضاها وإن ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف وإني أنا أخوك ولا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في اليمين ثم أذن مؤذن حي عليهم وقل عليهم ماذا تفقدون سواء الذي وجاء بهم بينها في سبيل لقد علمتم الذين لتسجد من الله وما كنا ظالمين جزاؤهم جزاؤه من وجد في أهله وجزاؤه قبل وعاء يخيه ثم استخرجا من وعاء يخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أبيه الملك لا يشاء فقد جاء من شاء
يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في قالوا يا أيها العزيز إن له خلصوا نبيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما جئنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين التي كنا بها وهي التي يومنا بها وإنا لصادقون ورثكم أنفسكم أمرا وصاروا جميعا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من الله إن فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة هل علمتم ما فعلتم بيوسف قالوا إنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي أن الله علينا إن الله لا يضيع لقد ترك الله علينا وإن كنا لغافلين لا تدري عليكم ولما فصلت لي إني ناجد ريح يوسف لنا أن تفندون تالله إنك لفي ضلالك المتين جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا دخلوا على يوسف على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعل ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي ربي لطيف لما يشاء نجيتني من الجهل وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت تدري أكثر الناس وكأي من آية في السماوات يقولون عليها أجرهم بالله
يوم تأتيه واشية من أيام الآخرة يوم ولا سبيلي أدعو إلى الله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا ولا يظلمون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم مكذوبون كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم هي تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر والليل لأجل مسمى يدبر الأمر ويفسر الآيات لعلكم بلقاء ربكم تؤمنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها فليكن في ذلك الآيات لقوم يعقلون. فعجبوا قالوا إذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم أولئك الذين في النار أولئك لهم نار فيها خالدون. ويستجيبونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم مثلات وإن ربك لشديد العقاب. الذين كفروا لولا أنزل عليه وغير من ربه إنما أنت مؤمن ولكل قوم الله يعلم ما تحمل الأنثى وما تغيظ الأرحام ولا تزداد وكل شيء له ميزان وكان الجليل المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جعل في أمره مصدق الليل وسالم بالنهار. معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هو الذي يريكم الأرض وسماء ويرسل السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ومن يهدون بالله وشديد المحال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء يبلغ وما هو يسد من في السماوات والأرض قل الله غلب اتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم ولا ضرا واتخذوا لله شركاء خلقوا كخلقه وتشابه عليهم السماوات وكل شيء من السماء ماء فصالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما توقدون عليه في النير ابتغاء حلية أو متاع
حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومن يعلم أن ما أنزل إليك وما أمر الله والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يدخلونها ومن صلح من آبائهم والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر بالحياة الدنيا والحياة الدنيا ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربهم إن الله يذل من يشاء يهدي من آمنوا وتطيروا بإذنه على بدينه الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك ولو أن قرآنا صيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا فلم يأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة من غريب من دار هدايا الله على الله يغلب بها برسلنا للذين كفروا وما على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر في الحياة الدنيا وعذاب الآخرة يعلم من مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وذكرى بالقوم الذين اتقوا والكافرين الذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر فالذين ما هم الجنة وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان رسول يأتي بآية إلا بإذن والله أعلم وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإننا عليك بلاغ عليهم حساب أولم
ولو أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها ومثل الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما لست مرسلا قل كفى بالله بين بيني وبين الرحيم يحلف لها كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الذي له ما في السماوات وما في الأرض ويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستعدون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله من رسول إلا بلسان قومه يبين لهم ويذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وذكرنا موسى بآياتنا نخرج قومك من ظلمات لقوم اذكروا نعمة الله عليكم إذا جاءكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويدبرون أمركم ويدعون نساءكم وفي ذلكم من ربكم عظيم تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد إسرائيل تكفرون أنتم وما جميعا فإن الله غني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلوا به وإنا لفي شك مما دليلنا إليه قال منهم بالله شك فادر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا وعجب بكم يحدثون عن تنهدون وما كان يبدون بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله على الله ونتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا ربنا ونزل الله وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم رسولا لنهلكن الظالمين لكم الأرض من بعد ذلك ومواقيت وقاموا وهذا كل جبار عليم جهنم ويصاحب يدعوا ولا يكاد يصيغوا ويأتي الموت كل مكان الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يدرون ولا شيء ذلك وضرار البين أن الله خلق السماوات والأرض بالحق يكذب ويدعى جديد وذلك على عباده وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا هدانا الله فهديناكم فما علينا فلزمنا سبقنا ما لنا من محيص فقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم
فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي مثلا كلمة طيبة يجيء كلها